tacsida markay naga dhammaato qof kasta oo dhallinyaro ah waa isku imaan doonnaa waxaan xidhi doonnaa suuqyada xamar ugu waaweyn suuqa bakaaraha suuq bacaad xamar weyne meel kasta oo tukaan uu ka furaya aan islaana al-shabaab lacagay siiyaan waa xidhaynaa ilaa iyo ruuta ganacsiga gobolka banaadir ay ku dhawaaqaan inay joojiyeen lacagtii baadda oo ay ku dhawaaqaan inay garab taagan yihiin dagaalka al-shabaab madaxweynaha wuxuu sheegay ayaan dhexe inaan hadda jirin meel dhexa oo la istaago warkaas waa sax aniga waa taqaanaan soo maaha dawladda hadda jirtay aniga waa isu ka taqaanaan soo maaha dagaalka hadda lagu jiro waxaan ku garab taaganahay dawladda iyo madaxweynaha ma jiraan wax la yidhaahdo damul jadiid nabad iyo nolol xisbi hebel ma jirto waxaa jirta al-shabaab iyo dad la dagaalamaya qof kasta oo diida inuu dawladda soomaaliya iyo madaxweynaha inuu ku garab istaaga dagaalka al-shabaab isagoo ka raadinaya siyaasad qofkaas waxaa u aqoonsanaynaa inuu cadowga ka tirsan yahay warkaan aan ku soo celiyo safiican dhegaysta warkaan aan ku soo celiyo qof kasta aan ismaqalno dhalinyaro warkaan safiican u dhegaysta qof kasta oo siyaasi ah oo soomaaliya damac kale maalin inuu qabsado hal ikhtiyaaro maanta haystaa waa inuu dawladdu ku garab istaaga dagaalka waxaan leenahay siyaasi oo aqligaa ka shaqaysii xasan sheekh ha ku xumaynin dagaalka al-shabaab aqliga ka shaqaysii yaa kuu fiican inuu xasan sheekh maxamuud waxaan rabnaa siyaasiyow adiga isweydii xasan sheekh waxaada ugu xumayn yaa adiga kuu fiican inuu xasan sheekh haddii dabacba kugu jiro oo al-shabaab la dagaalamo oo adigu xasan sheekh aad ka guulaysato soomaaliya aan al-shabaab joogin aqliga ka shaqaysii sideedaba amniga lama siyaasadeeyo amni waa amni waa sidaan warka ku bilaabay cadowgu waa noo midoobay wuxuu midoobay inuuna dilo waxaan u midoobaynaa inaan dilno guriga uu ku jiro soo sheega waxaa kaloo wehliya oo laga yaabo dawladdu inay dhibsato oo aan rabaa inaan sheego al-shabaab lagulama dagaalami karo shuruuc iyo xeerar dagaal al-shabaab si loola dagaalamo oo loo xanuujiyo waxaa loo baahan yahay xeerarka iyo shuruucda dagaalka in laga tago al-shabaab waxay dileen waalidiinteenna waxay dileen ilmaheenna waxay dileen hooyooyinkeenna intay sameeyeen oo naxariis darro ah in u dhigantaan ku samaynaynaa